Assalaamu calaykum waraxmatullah. Frank Abagnale waa nin Maraykan ah oo dhallinyaronimadiisii sameeyey khiyaanooyin fara badan, isagoo shaqooyin uusan waxba ka aqoon sheegtay sida inuu baylood yahay, diyaarado badanna sidaas ku raacay. Mar waxa uu ka shaqeeyey inuu dhakhtar yahay, marna waxa uu ku shaqeeyey inuu lawyer yahay. Waxa kaloo uu dhacay lacago fara badan oo uu si xirfadaysan ku qaatay. Waxaasoo dhan waxa uu sameeyey muddo 5 sano gudaheeda. Markii ay da'diisu ahayd 16 sano jir ilaa uu 21 sano gaarayay, markaas oo xeeladihiisa laga warhelay oo xabsi loo taxaabay. Qisadiisaas cajiibka iyo sida isagoo dhalinyaro ah uga meermeeraystay in gacanta lagu dhigo ayaa waxay keentay in laga sameeyo filimo sheekadiisaas. Haddaba Frank isagoo ka sheekaynaya qisadiisa ayaa waxa uu tilmaamay in isagoo 16 jir ah ay waalidkiis kala tageen, markaas oo ay maxkamaddu ku tiri midkood dooro si aad ula noolaatid. Laakiin waa uu diiday oo inuu kala doorto oo waxa uu bilaabay inuu kaligiis noolaado, isagoo bilaabay inuu shaqooyin raadsado si uu naftiisa u kaafiyo. Maalmihii u horreysay ayaa waxaan ogaaday buu yiri haddaan da'dayda weynaysiiyo lacagta aan ku shaqaynayo in la ii kordhinayay. Maadaamana aan jir weyn lahaa oo markaan suudka qaato la ii malaynayay inaan da'dayda ka weynahay. Markay lacagtu ku yaraatana waxa uu bangiyada geynayay check forgery ah oo aan lacag bankiga u ool uu kaga qaadanayay. Markii ay booliisku ka war heleen ayay noqotay inuusan bankiga ku noqon karin, taasoo ku khasabtay inuu New York isaga tago maadaama ay booliisku raadinayeen. Maalin isagoo maraya meel hotel ah agtiisa ayaa wuxuu arkay niman baylood ah oo hotelka galaya. Markaas ayaan goostay buu yiri sidii aan isaga dhigi lahaa baylood, markaasna adduunko dhan aan si lacag la'aan ugu safri kari lahaa. Waxa uu wacay telefoonka shirkad diyaaradeed oo la oran jiray Pan Am oo xilliga ahayd shirkadaha diyaaradaha Maraykanka tan ugu weynayd. Waxaana uu u sheegay inuu yahay baylood iyaga u shaqaynaya oo uniformkiisii ay uga lumeen hotelka, rabana uniform cusub in la siiyo. Markaas ayaa waxay u tilmaameen shirkadda uniformka u samaysa, sidaasna ayuu ku helay uniformka ay xirtaan bayloodyada. Markaas ayuu haddana waxa uu bilaabay siduu ku soo heli lahaa ID-ga ama kaararka ay bayloodyadu wataan, isagoo u tagay shirkadaha sameeya kaararka mid ka mid ah, isagana dhigay inay soo dirtay ama uu ka socdo shirkadda Pan Am. Markuu uniformka iyo kaarka shirkadda Pan Am uu helay ayaa waxa uu bilaabay inuu aeroboortka aado oo uu raaco diyaaradaha kale. Maadaama uu ka baqayay haddii uu raaco shirkadda Pan Am oo uniformkeeda iyo kaarkeeda uu sito, in bayloodyada kale ay gartaan in kaar forgery ah uu wato oo ay sidaasi ku kashifaan. Taas ayaa waxa keentay buu yiri inaan raaco diyaaradaha kale, iyadoo oo shirkadaha diyaaraduhu xiriir ka dhaxeeyay ah in shaqaalahooda ay isu qaadi karaan lacag la'aan. Ninkan ayaa waxa uu fariisan jiray kursiga ka dambeeya bayloodka, isagoo yiri dhowr mar ayuu ii soo jeediyay bayloodku inaan diyaaradda wado. Anigoo marar badan ka diiday arrintaas maadaama aan ogahay buu yiri inaanan diyaaradaha sida loo kaxeeyo waxba ka aqoon. Markuu diyaaradaha ka degana waxa uu degi jiray hotel si bilaash ah, maadaama uu hotelka lacagta laga rabana u dallaacayo shirkadda, oo hoteelada uu seexanayay waxay lacagtaasi ka qaadayeen shirkadda Pan Am. Shirkadda diyaaradaha ee Pan Am ayaa waxay tiri ninkan markuu jiray 16 ilaa 18 sano, qiyaas ahaan waxa uu duulay ku dhawaad 1,600,000 oo kiiloomitir, isagoo raacay 250 duulimaad uuna ku tagay 26 waddan, isagoo sheeganayana inuu yahay baylood iyaga u shaqeeya, sidaasna ay diyaaradaha kale ee xiriirka la leh Pan Am ku qaadi jireen. Frank ayaa waxa kale uu tijaabiyay shaqooyin kale inuu qabto, isagoo isku dayay kalkaaliye dhakhtar iyo inuu lawyer noqdo. Laakiin markii uu dhowr bilood shaqeeyo oo uu dareemo in la ogaan rabo ayuu isaga tagay shaqooyinkaas. Haddaba 1969 ayaa waxa uu diyaarad u raacay Faransiiska, markaas oo ay booliisku qabteen markii ay ogaadeen in ninkan Sweden laga rabo bangiye uu check been ah lacag uga qaatay. Waxa kaloo soo dalbaday in ninkan loo soo gacan geliyo 12 dowladood. Laakiin Faransiiska ayaa haddana waxay ogaadeen in ninkan Faransiiska uu sidaas oo kale ka sameeyay. Markaas ayay maxkamad saareen, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xariga. Kadib ayaa waxaa loo dhoofiyay Sweden oo halkaasna lagu xiray 6 bilood. Waxaana loo soo tarxiilay Maraykanka oo maxkamad ayaa la saaray, waxaana lagu xukumay 12 sano oo xariga. Laakiin 5 sano wax ka yar isagoo ku jira ayaa waxaa loo soo bandhigay in la sii daynayo haddii uu u shaqeeyo
hay-adda sirdoonka Maraykanka ee FBI-da si ay uga faa'iidaystaan xeeladaha uu samayn jiray iyo sida uu bangiyada ku khiyaami jiray. Hay'adaha sirdoonka Maraykanka ayaa mararka qaarkood waxa ay shaqo siiyaan dambiilayaasha maskaxda badan haddii ay u arkaan inuu khibrad fiican leeyahay. Ninkan ayaa waxa kale uu sameeyay shirkad uu kula taliyo bangiyada uguna baraarujiyo xeeladaha lagu khiyaameeyo isagoo sidaas lacag uga qaadan jiray. Ninkan markuu ka sheekaynayo noloshiisa ayaa waxa uu tilmaamaa in dad badan ay ku sheegaan inuu yahay nin maskax badan. Laakiin anigu waxaan isu aaminsanahay buu yiri inaan xilligaas aragti gaabnaa. Haddii aan maskax iyo waayo aragnimo lahaana kuma qaateen dhallinyaronimadeydii bangiyo aan dhaco iyo shaqooyin been abuura oo aan sheegto xabsina aan ku mutayto. Arrintaas ilaa maanta waan ka qoomameeyaa ayuu yiri. intaas ayaa nooga joogto sheekada ninkaas intii aan mar dambe kulmi doono. Nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.